عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo talaada arbaca ay soo galayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 4 bisha Agosto sanadka 2026 haddaba caawa barnaamijku waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe intaynu kala maqnayn maxaa soo kordhay. haddaba qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadanayno waxaa ka mid noqon doona xafiiska aayatullaahiga Iiraan oo goordhow soo saaray war weyn, Israa'iil oo heegan buuxa gelisay ciidankeeda badda iyadoo ka baqaysa Iiraan. sababtu maxay tahay? wararkii ugu dambeeyay arrimaha waan idiin soo gudbin doonaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo sheegtay wadahadaladii u socday Cumaan iyo Iiraan inay meel wanaagsan marayaan ee ku saabsan marinbiyoodka Hormuz. hub loo malaynayo inuu u socday Xisbullah oo la sheegay ciidamada Lubnaan inay qabteen. hubkaasi halkuu ka yimid, sideese uu ahaa ama hub noocee ayuu ahaa? dhammaan warbixinadaas ayaynu caawa barnaamijka ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirnana wixii soo dhaca warar waan idinla socodsiin doonaa.